markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal weli waa heesihii carruurtee sida la ogyahay aabbihii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray markii ay afadiisu wiil umusho haddiise ay gabadhi u dhalato wuu qawadi jiray wuxuuna isu qaadan jiray dhib mooyee nin aan dheefi u soo hoyn taasise sina soomaalida gaar uguma ahayne waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku kala yaal qaaradaha afrika iyo aasiya waa dhaqan fac weynoo islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aad a uga hirgalay muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabbo weliba gabadhii u dhalataa inuu nolosha ku aaso tiiyoo soo eegaysa lagana yaabo inay u ilka caddaynayso iyada oo faraheeda curdanka ahna garkiisa kula jirta dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxa ugu weynaa iyaga oo ka baqi jiray gabadhu berri ka maalin inay reerka ceeb u soo jiido soomaalidii reer miyiga ahayd see sababo aan taasi ku jirin ayay gabadha ku qawadi jireen kuna nici jireen madaxa qoyska oo aabbaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsataa howlaha adag ee miyiga ka jira sida ku dagaalanka daaqa iyo biyaha dhicidda geela iyo dhicintiisa sahanka geediga aroorinta xoolaha shubaashooda fulintooda iyo cid hadduu gaboobana uu ku hadlayn karo sida iska cadna howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay inkastoo ay jireen qaar kale oo qabashadooda iyada uuni ay ku fiicnayd sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolkay dhalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirrib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku beerin doonto sidii ay u badnaydna maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambayn jirtay kolkolka tirada yare ay ku soo noqotona waxay ka soo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo carruurtii ay isu dhaleen taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yidhi heblaay da'dan armaad gabar sidaa markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxaa su'aasha loola jeeda iyo fikradaha ay xambaarsan tahay waxay tidhi dhibaay gabar dooni maayo dhibkeedii iyo dhiga xidhkeeda ninkii ma dharaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda dhinaca kale gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaama maro kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doobka yahay mar walba isaga ayaa cidda ciidan u ahaan jiray howlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray markii uu reer yeeshana waxay u badnayd aqalka aabbihii in kiisana laga feer dhiso halkiisaa ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada qoyskana qayb libaax ka qaadanaya ugu dambaystana waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo haddaba hooyo soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaannay ayaa 4 da-ood oo ay dhashay 4 gabdhood isku xigsisay sidaa darteedna ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka murugoon jireen haweenaydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska sii dayn inay gablabin doonto ha yeeshee isaga oo aan weli taladaa qaadan ayay uurkii shanaad yeelatay waxay ogey in ula booca loogu tukubayo sidaa awgeedna markay wallacday ilaa 9 mar walba way ducaysan jirtay waagu markuu baryo iyo qorraxdu kolkay baalka dhigato labada cirguduudoodba eebba ayay ka bari jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo tolow maxaa laabteeda ka guuxaayey marka hore
waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. marka labaadna waxay ka baqaysay xataa haddii aan la sii dayn ninku inuu ka minyareeyo dabadeedna haweenayda cusubi ay wiil u daadiso oo beri ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. marka saddexaadna waxay ka cabanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awalba sayigeeda ku dili jiray ay sacab tuntaan, isaguna uu kolkaa diradirahooda u nuglaado. maalintii dambe weli iyada oo aan sagaalkeeda go'in ayay fooshii qabatay. udbaha aqalka ayay midba mar ku dhegtay. dumarkii ka dhalin jirayna uma soo degdegine cabbaar bay ka dib dhaceen. iyaga oo alaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhigatiraayeen. waxay hoos isu lahaayeen maxay la qaylinaysaa, kollay ma wax aan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya. ugu dambaystiina waxaa iyaga oo wahsanaya aqalkii ay haweenaydu ku foolanaysay xaggiisa u soo dhaqaaqay dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da-ood oo horeba ka umulin jiray. geed aan guriga ka fogayna waxaa fadhiyey ninka ay ooridiisu foolanaysa iyo dhowr kale oo ay xigto ahaayeen. halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda. waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweenayda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona. wax yar kadibba rabbi intuu u fududeeyey ayuu kala keenay. waxaa lagu gartay alaladkii aqalka ka soo baxayey oo si kadiisa u joogsaday. waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheeraysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay, sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashiinaya. raggiina farriintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray. haddii kale miyaa la mashxaradi lahaa. dabadeed iyaga oo aan ku tashan waxay raggii u soo kaceen xaggii aqalka. dhowr ilmilicsi kadibna hortiisii ayay isa soo tubeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata. dabadeedna labadii umulisa middood oo muruqii hadda dhashay gacnaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid. mase waa wiil caloosha ku kobcay oo indho waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato. haddaba aabbaha dhalay dan ha u geline waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhooleyda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qarka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro. dabadeed dhalaartii ay umushay dhalaartii kushan ahayd ayay u haystay wiilkii oo quruxdiisii ay isa soo tartay. waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddhaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggii saygeeda ku jiri jiray sidii ay candhuufta dib ugu liqeen. nimankaas dumaashiyaalkeeda ah iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhurwaaye ku tilmaamaysa iyo wiilkii ugu haystay. markaad dhalatood dhawaaqday dhadoy dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, dhurwaayaa iga dareeray. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo